بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كسو دوادا جنرال كصافي جنرال كان او aan kaga hadalno arrimaha ku saabsan qoyska caafimaadka iyo nolosha. maanta waxaan ka hadlaynaa arrin caafimaadka ku saabsan iyo cuntada aan cunno. waxaan ka hadlaynaa waxa la yiraahdo gluten free foodska. hadda ayaantan waxay noqdeen wax popular ah oo ay dadka aad uga hadlaan, dad badanna ay isticmaalaan. gluten free ga markii hore waxa loo yaqaan cunto ay cunaan oo qura dadka cuntooyinka kale allergiga ku qaba sida maxay ahayd wheatka waxaan ay yiraahdaan ama qamandiga. dadka allergiga ku qaba ayaa markii hore gluten free food ka cuni jiray. dadka cudurka la yiraahdo celiac disease ka qaba dadkaas gluten free foods ka cuni jiray. hadda waxay noqotay wax casri ah oo dad badan ay cunaan ama ay ka hadlaan, maxaa yeelay waxay u arkeen inay caafimaadkooda u fiican tahay. marka gluten free ga waxyaabaha aan ka arkay iyo habka aan u isticmaalo ayaan rabaa maanta inaan idinla share gareeyo oo aad ka faa'iideysataan, because waxaan aaminsanahay inay faa'iido ku jirto. gluten free ga marka anaga daway gurigeyga sida looga isticmaalo waxay tahay horta gluten maxaa la yiraahdaa aan ka hadalno. glutenka waxaa la yiraahdaa waa protein ku jira burka laga helo. proteinkaas marka dadka qaar allergy ayuu ku sameeyaa, dadka qaarna kuma sameeyo. dadka uu allergy ku sameeyo waa dadkaas glutenka cuntada glutenka la ka carara ee gluten free ga cuntada la cuna. dadka aan cuduradaas qabin oo allergiga qabinna cuntooyinka caadiga ay cunaan. hase yeeshee hadda sida aan horeba idinku sheegay, gluten free wuxuu noqday wax ma garanaysaa dad badan oo dadka caafimaadkooda raba inay wanaajiyaan oo dhan ay cunaan oo ay ka hadlaan. marka aniga daway aan u samaystaan idin sheegaya, maxaa yeelay cuntada gluten free ga waa cunto qaali ah oo aan suuqa laga iibsan karin. markaa supermarket tagtid qaybaha ay taalo gluten free foodska waa aragteen. cuntada taalo waa cunto qaali ah. rootigooda oo kale for example asagoo bacyar ku jiro lacag badan yahay ma iibsan kartid. marka waxaan ka fakaray sidii aan gluten free u cuni lahayn laakiin aynaan de lacag badanna u khasiri lahayn. marka waxaan go'aansanay inaan anaga samaysano gluten free rooti gurigayga ku samaysto si aan u yareeyo glutenka lagu cuno guriga. maxaa yeelay gluten free 100% inaad noqotid way fiican tahay, laakiin wax sahlan ma aha. glutenka cuntada oo dhan ay ku jirtaa, rootigay ku jirtaa, maxay ahayd gluten waa wheatka rootigu ku jiraa, baastadu ku jiraa, burku ku jiraa, keegu ku jiraa, buskutku ku jiraa. wax kasta oo bur laga sameeyo glutenka wuu ku jiraa. marka ma dhihi kartid gluten free 100% waa noqonayaa, laakiin wayna fiicnaan lahayd haddaad noqon kartid, laakiin way adkaatay. waa isku dayay markii ugu badnayd oo gurigayga gluten free laga ahaa waxay ahayd 2 week. labadaas week shaqo adag ay ahayd inaan gluten free guriga ku feed gareeyo, cuntada qado quraac casho gluten free aan cunno. shaqo aad iigu adag ay ahayd. hase yeeshee go-aanan gaaray, maxaa yeelay shaqo aan sii wadi kara ma ahayn oo waxay ahayd very tiring and waqti badana iga geli jiray. marka go-aankan gaaray waxay ahayd maadaama aanan gluten free 100% samayn karin, waxaan ku go-aansanay glutenka guriga laga cuno inaan yarayno ama dhinno. sidaan u dhinnay marka waxay tahay waxaan samaysanaa rooti gluten free oo guriga lagu sameeyey. waxaan samaysanaa canjeeradeena gluten free oo guriga lagu sameeyey. waxaan samaysanaa malawax gluten free oo guriga lagu sameeyey. iyo maalinna waxaan ku qadaynaa cuntooyinka gluten free ga ah. maalin kasta maya, laakiin maalin waa isku daynaa inaan qadada ka dhigano. quraacda iyo cashada waa gluten free ama waa rooti, malawax, canjeero, cambuulo, waxyaabaha aan glutenka lahayn ayaan ku dadaalnaa inaan cunno. labadaas gelin cerealka oo kale hadda ma cunno, waa joojinay. maxaa yeelay sonkor badanaa ku jirto, waxaa ku jira maxay ahayd gluten uu leeyahay. glutenkaas ku jirana waxa waaye cunto kasoo jeeda waxaan ay yiraahdaan GMO, genetically modified food ama crop waxaan ay yiraahdaan ayuu kasoo jeeda. marka wax GMO kasoo jeedo iyo wax gluten leh 100% ma joojin kartid, laakiin yaray oo ka taxadir. waxaan kaloo idinkula talinayaa cuntada markaa cunaysaan inaydaan iska cunin
adduunka hadda waa xumaaday wax walba waa la qasay wax walba waa la waalay wax walba chemicalisa lagu daray cuntooyinka aad cunaysaan akhriya baakada maxaa ku qoran akhriya cuntadan maxaa laga sameeyay is very important maxaa yeelay dadkii oo dhan cudurraa ku dhacay saqiir iyo kabiir everybody waa jiran yahay qof kasta waa complain garaynaya qof walbaba daawo qaata qof walbaba saan waaye marka maxay hayto sida marka cuduradaas iyo waxaas loo yareeyo gluten free cunto ah inaa cuntiin ku dadaala soorta oo kale waa gluten free cambuulada waa gluten free bariiska waa gluten free waxyaabaha adiga guriga aad ku samaysanaysid kinwaha oo kale hadaa cuntiin waa gluten free baastooyin gluten free suuqa waa yaalaan inkastaanan ka helin marka maanta aan soo koobo warka waxaan idin tusayaa rootiga gluten freega aan guriga ku samaysto rootigaas oo faanna igama aha ciyaalkayga markay barteen rooti kale oo suuqa yaal oo ay ciyaalkayga cunayaan ma jirto haba yaraate rootiga suuqa wayba ka hunqaacayaan rootigaas gluten freega haddaad caruurtaada u samaysid ay bartaan rooti kale uma baahnid sidoo kale canjeerada saa idinku sheegay gluten free bur ahaan ku samaystaa mala waxaana gluten free bur ah qof hooyo kastoo Soomaaliya way taqaanaa sida canjeerada loo sameeyo sida malaxa loo sameeyo idinma tusaayay haddii aad rabtaan canjeero gluten free iyo maxay hito malax gluten free ina cuntaan waxaa idin tusayaa burka aad u baahan tihiin inaad ku isticmaashaan laakiin sida loo sameeyo idinma tusayo maxaa yeelay waa idinku xadgudbaya haddaa iraado canjeerada sidaana loo duba iyo malawaxa sidaana loo duba haddaa iraado waa xadgudub hooyo walbo Soomaaliya way taqaanaa canjeero iyo malawax maanta aan rootiga wada samayno kaalay ila daawada marka hadda waxaan halkaan ku hayaa burar kala duwan burarkan oo kulligood wada ah gluten free oo aan u isticmaalo siyaabo kala duwan marka bur walba iyo waxaan u isticmaalaan rabaa inaan idin la share gareeyo idin sheego burkan waxa saa u jeediinba waa gluten free waana plain flour burkan waxaan ku samaystaa malawaxa sida loo sameeyo waa taqaanin ukun caano wax yar oo cusbo ah sonkor iyo burkaanad isticmaalaysaa meesha burkii kale ka isticmaali jirtay kan waa kii rootida lagu sameynayay asna waa gluten free rootigan ku samaystaa sida loogu sameeyana mar dhow waa idin tusi doona haddii ilaahay yiraa kan self raisingka waaye waa noocii khamiirka lahaa asagana waa gluten free kan waxaan ku samaystaa keegaga iyo canjeerada okay marka hadda waxaan bilaabaynaa rootiga sidii loo sameyn lahaa gluten freega ah kan marka xabad halkan bur waa wada isticmaali doonaa maxaa yeelay laba xabo rooti u isiinayaa baakadan si aanan maalin walba rooti u dubin laba xabo isiinayaa marka labada xabo hal mar aan wada dubanayaa labadan baaf aan ku shuban doonaa laba maalmood aan cuni doonaa insha Allah haddii ilaahay yiraa marka maxay hayto burka maxay hayto rootidan sameynteeda haddaa u baahan tihiin meel fog kama keenin sida loo sameeyo halkaan ay ku qoran tahay ingredientka halkaasaad ka arki kartaa aniga double ayaan isticmaalayaa maadaama aan laba rooti isticmaalayo ingredientka halkan ku qoran waa hal rooti laakiin aniga baakadoo dhan aan isticmaalayaa laba rooti si ay iigu noqoto laakiin haddaa hal rooti rabtid halkanna waa ka eegan kartaa haddii kale ingredientkan aan hadda isticmaalayo ayaad haafaynaysaa waxaan ka bilaabayaa waa ukun 4 xabo ukun ah haddaad hal xabo rabtid inaad samaysatid 2 xabo ukuna ku daraysaa mashiinkan aan rootida ku samaystaa aan idiin sheegay mashiinkan oo ah kitchen aid waa yara qaali in lasoo iibsado qofkii haysta waa haysta qofkaan haysanna kuma khasbanin inaad soo gadatid any machine oo sidan oo kale oo wax cajiimi kara waa ku samaysan kartaa gacanta ma aqaano ani weligay gacan kuma sameynin in lagu sameyn karo laakiin haddaad isku daydid maybe inaad gacanta ku sameyn kartid maxaa yeelay cajiinka rootidan cajiin adag maba aha waa cajiin biyo ah marka qofkii doono weli gacan kuma sameyn laakiin inaad ku samaysan kartid ayaa suuragal ah marka ani mashiinkana isticmaalaa rooti fiicanna wuu ii sameeyaa ukuntiaan qasayaa hadda markay ukunta intay ii qasmayso waxaan u baahanahay inaan ku daro 3 qaadoo sonkora
ku darayaa 6 qaado saliid ah waxyar ha isku qasmaan waxaan kaloo u baahannahay hal qaado buuxdo apple cider vinegar oo organic ah haddaad hal xabo rabtid rootida waa haafaynaysaa hal qaado buuxdo hadda ku darayaa waxaan u baahannahay biyo 800 oo mil ah boqol oo mil oo biyo ah waxaan u baahannahay qaadadan labadeed waa half a teaspoon labadeedan ku daraya haddaad mid isticmaalaysid mid uunad ku daraysaa haddaad mid samaynaysid aniga laba rootiyaan samaynaya marka labaan ku darayaa hadda burkii waa kan cusub u baahan yahay cusbadana saana ugu daraacay kolleyba tartiibaa ugu shubaynaa haddana waxaan ku daraynaa subagaan ugu dambeyntii burkii waa qasmay hadda iyo wixii kaloo dhan waa isku qasmeen waxaan ku darayaa 6 qaado oo subag ah qaado subag ah marka hadda waa kana rootiga wuu qasmay waxaan ku shubayaa qasacyadan ku shubayaa waxaan sugi doonaa 25 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo inuu soo kaco uu qamiiro size-kiisa uu double noqdo kadibna waxaan gelin doonaa ovenka 50 daqiiqo u baahan yahay inuu ku bislaado 50 kaas daqiiqo markuu ku jiro ovenkan banaanka soo dhigayaa markaasaan arki doonaa siduu noqdo aad ila arki doontaan marka hadda waxaan rabaa inaan idin tuso oo kaliya bahalka maxay ahayto cajiinkiisa sida uu yahay consistency-kiisa sida uu yahay waa sidii cajiinkii keega oo kale cajiin adag ma aha cajiinka doolshada marka la samaynayo kale siday tahay waaye marka rootiga waa kana labadan baaquli labadan waxaan ku shubay tireeyaan ku kala shubay afkaan ka xidhayaa saan hore idinku sheegay ilaa 25-30 daqiiqaan sugaynaa waa markaasna 50 daqiiqo kala la dubayaa sheekada marka intaas ay ku dhantaa markaan dubaan idin tusi doonaa wixii ka soo baxa insha Allah marka rootiga waa sameeyna waa kana 50 daqiiqo ovenka ku jiray labadii xabbo rootiga ahaa laba shay oo kala duwan way because qasacyadan ku shubaa kala shape ahaa laakiin labadaas rootiga ka soo baxay waxaan sameynayaa marka fridge kan gelinayaa bacdaan ku xirayaa bacdaasaan ku store gareynayaa afka laga xirayaa fridge ka dhigaysaa
marka u baahanta waa la soo baxaysaa waa goosanaysaa hadda rootigan waa wali waa diiran yahay marka ma raba inaan hadda jaro jaridiisa ma qurxoonaanayso laakiin rooti horo ii yaalayaan jaray kan waa birtan xoogaha rootigeeda waa yar yahay aan ku sameeyay birtanna waxay rooti balbalaaran oo kan ka yar weyn ii samaysaa marka rootiga noociisa waa kaasa waa rooti macaan ciyaalkana aad ay u jecel yihiin rooti kalena ma cunno haddaad ka faa'iidaysatay videogan rootigan aan sameeyay thumbs up isi haddaad maxay ahayto jeceshahay inaad videoyo kale oo kuwan oo kala aad daawatid oo aad ka faa'iidaysatidna subscribe garay haddii aad wax su'aala qabtid oo ku saabsan rootigan ama gluten free gana hoos igu soo weydii waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen waa mahadsantihiin